burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya wixii ka dambeeyay gebi ahaanba waxaa meesha ka baxay kaabayaashii dhaqaalaha ee dalku lahaa. Wadadani waxa ay dhex martaa xaafadda Horseed ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxa ay ahaan jirtay mid khatar ku ah adeegsiga dadweynaha ka hor dhismaheeda oo iska kaashadeen dadka deegaanka iyo hay'adaha Somreeb iyo Shaqadoon oo isgarabsanaya. qabsiga markii la aragay meena jidkii iyo wadadii iyo walaayo humaantii oo la aragay oo lan walku qowdo kalena lahayna la aragay ma iba wax wada qabsiga kooy talo oo may la jeediyay inay wala qabsada inay baahidii markaas jartii hoob loo ogaaday jawaabtii ku dhiibi fadii libi inay wala iska darsado contribution iyo wala aruuri ya ka bilaawday saas daraadee waana walaagi dhongna wal suubiyay waana walku guulaysidii baahidaas jartiya sheentay mashruuc wax wada qabsiga guud ahaan waana walis bulshadana iskaalati waliba dad badan oo waliba ka qayb qaaday bulshada kamid ah olole iyo way gelin iyo walaasada suubi bulshada deegaanka oo ka dhidhiyay dayaca wada xumo ee ka jirta xaafadan ayaa isu abaabulay sidii ay isku tashi ugu dhisan lahaayeen wadooyinka dhex mara xaafadan bilowgiiba hay'adda Shaqadoon waxa ay qaadatay doorkeedii iyada oo tababar u furtay guddiyo dhowra oo iska soo xuleen bulshadu wacyigelin ku saabsan wax wada qabsiga bulshada samaynta madal bulshada dhaqaale loogu ururinayo bulshakaab dhismaha guddi dhaqaale ururin oo ka kooban bulshada deegaanka furista akoonka xaafadda Horseed gaar ahaan laantilihaad waliba ka bilaawday war gudoomiyaha degmada amar dhiibi amarkii lagu furufaday maadaama jartay baaha oo akoon jartay ilaan dhaqaale la aruuriyay meel ka harayo ama meel ka keediyo la faday saas daraadee gudoomiyaha degmada warqad la qaaday isuha dhiibi ka baad salaam bangiga la saadi ama dahabshiil la saadi sadiyaal ku furista akoonka saasa la iska caawiyaa la iska kaalmaysaday Shaqadoon waliba noo aawiday guud ahaan waliba yeelahay tahay akoonka furistiis mayba noo aawiday holistii guddiga iyo may kale noo aawiday gudoomiyaha guddiga dhisowjay iyo qasnajiga guddiga iyo waliba kale noo aawiday guud ahaan furista akoonka iyo may kale noo aawiday dhankahay gudoomiyeenka guddiga dhisowjay iyo qasnajiga intaasana noo aawiday xilligan bulshadu waxa ay yaqiinsan yihiin in ay iyagu wax qabsan karaan waxayna ka sheekaynayaan duruustii ay ka barteen tababaradii isxigxigay ee ay Shaqadoon siisay mashruucii hore meeg bashir duwayeen mashruucii hore meeg waxa mashruuc qosay mahayn mashruuc oo maana heedo iyo barnaamijyada sidoo ay goon ahaan yoo la suuqsaday laakiin kan meeb bana ku jira bees oo bulshada laatiya ka jarta beesadaas ay bulshada laatiya beesada meeb waa heedo dhiibtiya meeb waa iskaashadeen guddiyo meeb suubiyay oo xaafadda ku dhisan yahay meeb waa ka lug lahay saas daraadii meeb waa mashruucii hore mashruucan saas ka jalduwayeen kan iyo kikal meeb ka jalduwayeen waan ku bedelayeen bulshada marka meeb dareentay maana antii iska talada korto meeb waa jeebshe waa suubsado dareenti hortii hadii may fiiri jireen gacan kale wal ku weydii jireen laakiin hadda may ba fiiriyeen intii jeebsho wal ku suubsado koraan laakiin lan baahdo doona oo may buuha jeebsho wal ku suubsado doona may buuha iyo iska talada koraan may buuha ku guduunyo kaliya inkastoo la dayactiray badankooda wadooyinkii burbursanaa ee magaalada haddana wali waxa taagan baahida ka jirta dhanka caafimaadka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee xaafaddan Horseed ayaa ka mid ah meelaha ay codsanayaan in wax lagala qabto bulshadu baahiyaalka waliba kumada jidadyaal oo neen soo fadayaan oo amsheedka oo hooyada dhallaanka inay soo beefdaan biyo oo kal intaas fadaan